xogaga SSC ayaa wacad ku maray inay 4 maalin gudahood ay guud ahaanba Somaliland iskaga xoreyn doonaan iyadoo kumanaan kun oo ciidan la soo bandhigay garaadaduna ay sheegeen in howlgalladii abadigu cusla ay qaadi doonaan dhanka iyo koonfurta xogaga argagixisada ayaa weeraro culus lagu qaaday iyadoo degmooyin aad u balaaran laga saaray saraakiil nool la qabtay sidoo kale mooshinkii ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa meel xasaasi ah maraya iyadoo ku soo biireen xubno cusub qodobadaasi oo qodobo kale oo faahfaahsan ayaa warkeena ku eegaynaa barnaamijka waxa ay kala qeybgalaya saaxiibkay Farogod Gooni iyo rag kale oo hadda madaxda ku xisi karin soo dhawaada dawada mahadsan aad iyo aad baad u mahadsantahay shidow soo dhawaad hay haddaan barnaamijkeeni u guda galo waxaan ku bilaabayaa saaxiibkay Farogod kulan xasaasi ayaa ka dhacay magaalada Addis Ababa caasimadda dalka Itoobiya oo soo qaban qaabiyay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed kulankaasi waxaa loogu magac daray kulanka abaalmarinta ragga ka qayb qaatay in gobolka Tigray nabad laga gaaro maxaad xogood ka haysaa horta shidow aad iyo aad baad u mahadsantahay sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa saaxiibkayga barnaamijka igala qayb qaadanaya waa Gooni iyo waliba dadka aad sheegteen meesha ka maqan waliba markaas gadaal baan ka xusi doonaa waliba nin ayaga laftigooda waan soo dhaweynaynaa inta haddii aan ka gudbo maanta magaalada Addis Ababa waxaa ka dhacay kulan loogu magac daray kulanka soo dhaweynta iyo nabadda iyo maxaan ku dhahay isdhexgalka dabcan saan buu ka dhignayd kulanka wuxuu ahaa kulan la leeyahay waxaa lagu shalamaadayaa ambaba hambalyo iyo bogaadin lagu siinayaa dadkii ka qayb qaatay nabadda Itoobiya oo macnaheedu yahay in TPLF dagaaladii lagu qaatay dadkii ka qayb qaatay ilaa nabadan waxaa keenay dagaaladii dagaalkii dadkii ka qayb qaatay in lagu shalamaado waa arrin horta si markii la fiiriyo aan soo dhaweynayno guud ahaanba bulshada Soomaalida dawlad deegaanka Soomaalida ay soo dhaweynayaan waxaa la soo dhaweynayaa markii barbar laga fiiriyo maxaan ku dhahay in xoogagii Tigreegu ay ku jabeen dagaalkii 2 sano ay wadeen ka socday waqooyiga dalkaasi Itoobiya waxaa kale oo xusid mudan ayadana oo soo dhaweynaynaa Tigreega oo afka gacanta ku wada kabihii gacanta ku wada inay Addis Ababa maanta ku sugan yihiin waa soo dhaweynaynaa laakiin waxaan ka xunnahay inaan maanta aan garab fadhiisano TPLF iyo Tigre oo 27 sano dawlad deegaanka Soomaalida dhibaato baan ku hayay oo maxaan ku dhahay dhibaatadii ay geysteen wax magdhawa iyo wax xuquuqa midna ayna naga siinin dalkaasi Ethiopia haddaan taas ka dhax galo meesha ciwaanka waxa ku qoran in cid kasta oo ka qayb qaatay in waqooyiga Itoobiya nabad laga gaaro in lagu abaalmarinayo hase yeeshee ma laga yaabaa inay tahay cid kasta oo dagaalkaasi qayb ka qaatay in Tigray la jabiyo sidaaba waa cid kasta oo dagaalka ka qayb qaatay ayaa lagu abaalmarinayaa Soomaalidu waxay ahaayeen qowmiyadda kaliya sida hoose uga qayb qaadatay xataa canfar bayna dhaantay waxay ahayd qowmiyadan TPLF maadaama maca Soomaali weyn ay dhibaato u geystay inta laaba laga qaaday oo waliba madaxweyne Mustafa markii uu hadda tusaale ahaan oo ciidamada 500 liyu booliska uu geynayay liyu booliska halka la geeyay daacad kameen ahayn la dagaalanka TPLF waxa kale oo ayadana jirtay asxaabta mucaaradka way diidanayeen iyagoo arrimo siyaasadeed oo ma garanaysa gurracan iyo kursi iyo hawlo kale ku raadinaya iyaguna way diidanayeen laakiin halkaasi waxay ahayd fursad jaanaysa oo mar hadiiba TPLF lala dagaalamayo in awoodda la saaro sidii nimankaasi looga argoosan lahaa hadda nimanka la yiraahdo amxaarada waxaan dhigi karaa waa niman raga maxay rag ku yihiin in kastoo way la dagaalameen waxay dhaheen dhibaatadii ay noo geysteen 27 sano hadda dhibaato looma geysana marka dawlad deegaanka Soomaalida loo fiiriyo ayaan ka argoosanaynaa bay dhaheen marka waxa weeyaan waa waxa ay Soomaalidu waxay dhahaan qariya ka fujisa marka horta Tigreegu waa sidaas waa dad waxa weeyaan dhibaatadii ay Itoobiya iyo dawlad deegaanka iyo Soomaalida meel walba ay ka geysteen ayaa iyagana laga jaray maantana waxay doonayaan in dawlad deegaan walba uu siiyo dhaqaale cusub oo ay deegaanadoodii ku kabtaan oo ay deegaanadoodii ku horumariyaan oo ay ku xiriyaan arintaas waxaan uga digayaa madaxweyne Mustafa Kolley hadda ka hor maruu Nairobi yimid $200,000 buu la baadigoobay Getachew Reda maantana waxa weeyaan Addis Ababa kula sawiran yahay shirkaas waa shir iska caalami ah kulankan Addis Ababa ka dhacay Mustafa Maxamed Umar uu ku qasbanaa sababtoo ra'iisul wasaaraha Itoobiya ayaa kulankan qaban qaamiyay cid kasta oo xukuumadda ama Abiy ka tirsan way ku qasbantahay inaan waxba laga weydiinin inay shirkaasi ay ka soo qayb gasho Mustafa
mustafana tan uu ku qasbanaan waayo wax kasta oo meeshaas ka dhacayana oo canuufteeda u liqayo oo jawaab oo ka siisanayn laakiin shirkan markii si weyn loo dhuuxo waxaad moodaa in lagu naas nuujinayo tikray oo la rabo in la mideeyo oromada awood oromada iyo tikrayga markii la mideeyeen xoogagan kale Soomaalida iyo Axmaarada iyo Canfarta iyo maamulada kale ee dawlad deegaanada dalka Itoobiya guud ahaan ay say tahay ku qaataan arintaas Soomaali kale awood kale halkaas ka soo baxaysa awooddaas horta way soo baxaysaa oo waxaa jirtay in Shimlis Addis ninka la yiraahdo madaxweynaha dawlad deegaanka oromada iyo Getachew Reda in ay kulan wada qaateen oo la soo dhaweeyay oo abagadaha dalkaasi Itoobiya gaar ahaan qoomiyadda oromada abagadaha ay leedahay waa ugaasyada salaadiinta in la kulansiiyay Getachew Reda in la yiri baal cusub baan furaynaa maantana arintan waxay xasuusinaysaa 1991 xilligii la dhaho jabhadda Onalif ilduuf baa ku dhacay oo ninkii la oran jiray Mala Zanaawi iyo xisbiga IPRF markii la aasaasay ayaa Onalif waxa loo bandhigay in la yiri war aan noqotaan Itoobiya baal cusub aan noqotaan waxa weeyaan waa in aad nagala qayb qaadataan oo awoodda labaad baan siinayna laakiin Soomaalidu waaga waxa u muuqatay dhibaatadii Mingisto iyo Xayla Maryan iyo Xayla Salaasay u geysteen waxay u arkayeen in ay si fudud uga gali karaan Itoobiya marka maanta arintan ay wada ra'iisul wasaare Abiy Ahmed waxay la mid tahay warqoomiyadda labaad ama awoodda labaad ee dalka Itoobiya maanta anaga xukunka hayna anaga hadaan oromanahay anaga maanta xukunkii hayna dagaalkan waxa idinku qaaday anagu aha qoomiyadaha kalena anaga adeegsanayna waxaan furroba furmi waxaan xidhnana waan xidhaynaa anaga isbahaysi nala gala si aan ku kale inagu caburin marka maanta isbahaysi nala gala waxa weeyaan amxaaro oo xultihiina dhulka idinkaga maqan waanu idin soo celinaynaa garab aan ka siinayna idinkuna siyaasadda iyo fagaaraha siyaasadda nagu taageera arintaas ha socota TPLF iyo Tigreeguna way ku qarceen ayaguna shardi ah waxay soo bandhigeen in deegaanadooda maadaama ay burbureen dib loogu horumariyo il gaar ahaan lagu farqadu aad iyo aad baad mahadsan waxaan u gudbaynaa dhanka iyo gooni magaalada Laascaanood ee caasimada gobolka Sool xiisad baa mar kale ka taagan iyadoo xogagu ay hanjabaado culus hawada soo marinayaan Salman Gaal wuxuu yiri ciidamada Soomaaliland waa inay tallaabo qaadaan ay garaadadana soo xidhaan sidoo kale xogaga SSC waxay soo bandhigeen cudud ciidan oo ku sheegeen inay saacadaha soo socda ay gooja cadana qabsan doonaan maamulka Soomaaliland ay iska xoreyn doonaan hanjabaadaas maxaa ugu dambeeyay xaaladda saasan soo muuqata horta labada dhinac waa isku fadhiyaan xaaladdu sidii hore ma way ka dartay marka Salman Gaal ninka la yiraahdo hadda wuxuu yiri horta ciidamada waa in la kala qaadaa hadii marka hore aan anigu warkayga la dhageysanayo wuxuu yiri labada ciidan magaalada laga qaado kadibna maxaa la yiraahdaa dadka shacabka magaalada ka qax lagu soo celiyo dagaalkana meel kale loo jeeyay hadda taas suuragal weeyso wuxuu yiri Soomaaliland xuduudeeda way ilaashanaysaa kadibna waxay ku qaadi doontaa weerar aad u culus waxaana la soo xiri doonaa garaadada oo ugu horeeya garaad jaamac garaad guud ee SSC dhamaantood wuxuu yiri xabsiga ayaa la dhigi doonaa talaabo ayaana laga qaadi doonaa hadalka Salman Gaal ka soo baxay maadaama uu nin guurti ayaa in ugu sareeyay madax meesha la ugu sareeyay uu yahay ma laga yaabaa hadalkiisu inuu saameyn ku yeesho xogagan SSC in la soo xiriyo af laga sheegay ayagoo ma kala jeclaba waa niman dagaal u diyaar garoobay waxayna waa inay iska xoreeyaan maxaa la yiraahdaa Soomaaliland ayagoo markaas sheegay inay dhawaan gooja cad ay sheegaysaa deegaanada dhan ee SSC laga xoreyn doono marka